filimku wuxuu ku bilaabanayaa muuqaal gabar yar oo wada dhiig ah jirkeeda taasoo joogta beer hareeraheeda lo'da beerta ayaa qaylinaya waxayna u dhimanayaan si naxdin leh waxay meel fog ka maqlaysaa codka hooyadeeda u yeeraysa kadib ey beerta ku xirnaa ayaa ku soo boodaya kadib waxaan arkaynaa haweeney bas saaran oo riyo xun ka soo toostay halka rakaabka kale ay hees wada qaadayaan saaxiibteed ayaa kula kaftamaysa inay la seexatay saaxiibkeed afka ayayna qabanaysaa waxay ka codsanaysaa inay arrintaas qariso xabaar kadib rakaabka baska saaran dhammaantood way hurdayaan iyadoo aan qofna tareensaneen baska wuxuu ka leexanayaa wadada wuxuuna galayaa meel macdan laga qodi jiray oo laga guuray dadkii oo la yaabay waxa meesha keenay rag weji xiran ayaa baska ku dhex tuuraya gaas suuxdin ah waxayna garaacayaan rakaabka ilaa ay ka suuxaan kadib haweeneyda ayay kaxaysanayaan waxay ka soo toosaysaa shaybaar iyadoo sariir lagu xiray tv ayaa waxa ay ka arkaysaa in dhammaan rakaabkii baska saarnaa ay dhinteen waxaana laga dhigayaa dad shil ku geeriyooday waxaa ag fadhida doctor beeg walaasheed oo loo yaqaana brofesoorada waxay u sheegaysaa haweeneyda inay meel ammaana joogto laakiin haweeneyda waxay ka walwalsan tahay uurka ay leedahay brofesoorada waxay u sheegaysaa inay og tahay inay gabar sido ayna yeelan doonto walaalo badan oo awood leh beeg ayaa imaanaysa waxayna u sheegaysaa haweeneyda gabadha caloosha ay ku siday inay leedahay awood gaar ah waqti kadib haweeney gacanta ku leh taatu ayaa sigaar ku cabaysa shaybaarka banaankiisa kadib waxay ku biiraysaa kooxdeeda oo ku jira gudaha shaybaarka iyagoo si naxariis daro ah u dilaya dadkii tijaabada lagu sameynayay waxaa kaliya ka badbaaday gabadh la yiraahdo arkawan waxayna iska bixinaysaa tubooyinka waxayna dhexmaraysaa dhiigga si ay banaanka ugu baxdo shaybaarku wuxuu ku yaalaa meel baraf ah oo cidlo ah arkawan markay cabaar socotay madaxa ayaa xanuunaya awoodeedana faraha ayay ka baxaysaa waxayna saamaynaysaa deegaanka u dhow waana midda ugu awooda badan kuwa tijaabada lagu sameynaya ee metahumanka ah dhinaca kale waxaan arkaynaa baabuur u socda guriga brofesoorada kooxdan waxaa hogaaminaya jang oo ah brofesoorada wiilay eedo u tahay isna waa metahuman awood leh brofesoorada wuxuu weydiinayaa sababta keentay in shaybaarka la weeraro oo arkawan ay baxsto jang wuxuu u malaynayaa in jayon ay ka dambaysay sii deynta arkawan kooxda tuwas ay garab ku siisay inay shaybaarka weeraraan kadib waxaan arkaynaa arkawan oo dhexlugeynaysa kayn baraf ah waxayna soo istaagaysaa laamiga waxaana sigaya baabuur ay wataan burcad u shaqeeya nin la yidhaahdo yongdu burcadda waxay abduubanayaan arkawan gudaha baabuurka waxaa ku jirta gabar la yidhaahdo kyong hi oo iyadana la abduubtay sababtuna ay tahay inay diiday inay ka tanaasusho lahaanshaha guriga aabaheed oo yongdu uu doonayo inuu xoog ku qaato waxayna ka codsanaysaa inay gabadha sii daayaan markay kyong hi hadashay waa la garaacayaa kadib waxay bilaabayaan inay dhibaateeyaan arkawan khalad weyn ayay ku ahayd midaas arkawan awoodeeda iyadoo isticmaalaysa waxay mid u dilaysaa dhammaantood baabuurkana shil ayuu gelayaa wuuna burburayaa kyong hi aad ayay ula yaabtay awoodda gabadha yar kadib waxay wacaysaa adeerkeed si uu u caawiyo markuu imaado way suuxaysaa arkawan kadib way qaadayaan kyong hi adeerkeed waa dhakhtar wuxuuna leeyahay rug xoolaha lagu daaweeyo wuxuuna arkawan ka saarayaa biraha jirkeeda ku jiray isagoo qaliinku ku jira wuxuu la yaabayaa markii uu arkay inuu arkawan iskeed u bogsanayso kyong hi adeerkeed wuxuu ugu digay in yongdu uu dhibaateyn karo si uu u qaato dhulka aabahood dhinaca kale waxaan arkaynaa haweeney la yidhahda johayan oo ku dhex jirta shaybaar dad lagu laayay iyadoo madaxa ka tooganaysa dadka awoodda leh ee metahumanka ah waxaan ogaanaynaa in johayan lafteeda ay tahay metahuman dhaawacyadeedana ay isbogsiyaan kyong hi arkawan waxay u wadaysaa gurigeeda arkawan waxay daaqada ka baxsanaysaa madaxeeda iyadoo u gacan haatinaysa xoolaha iyo shimbiraha sidii cunug yar oo aan waxba galabsan guriga waxaa jooga kyong hi walaalkeed oo lagu magacaabo daagil markii uu taabtay kyong hi si uu u eego dhaawaceeda arkawan ayaa isku dayday inay la dagaasho iyadoo moodaysa inuu dhibayo balse kyong hi ayaa ka celinaysaa kadib casho ayaa la keenayaa arkawan aad bay ula yaabtay cuntada maadaama aysan weligeed cunin cunto sax ah mar walba kyong hi iyo walaalkeed way isdagaalaan intii kyong hi iyo daagil ay isku haysteen dhulka aabahood arkawan waxay dhammaysay dhammaan cuntadii miiska saarneed kyong hi way la yaabtay markay aragtay siday u gaajaysan tahay arkawan brofesoorada waxay u sheegaysaa johayn in arkawan ay tahay qayb laga sameeyey ilmihii caloosha ugu jiray haweeneydii bilowga filimka waxayna u sheegaysaa in jayon ay tahay mid aad u xoog badan laakiin u baahan daroogo laakiin arkawan ay tahay mid aan la joojin karin waxayna amraysaa in la dilo si ayna caqabad ugu noqon johayn waxaa loo dhiibayaa qalab lagu raadraacaya arkawan iyadoo guriga ku jirta arkawan waxay mar kale maqlaysaa codka hooyadeed
madaxa ayaana xanuunaya, dhiig ayaana sankeeda ka imaanaya. Waxay soo deynaysaa awooddeeda iyadoo xitaa istaajisay waqtiga. Yangdu iyo kooxdiisa ayaa imaanaya guriga asagoo ka caraysan waxa Aragorn ay ku samaysay raggiisa. Waxaana ogaanaynaa in Yangdu uu adeer u yahay Qiangihi iyo Dagil, uuna rabo inuu xoog ku qaato dhulkooda. Yangdu kooxdiisa waxay bilaabayaan inay garaacaan Qiangihi iyo walaalkeed, isagoona doonaya inay si qasab ah ugu saxiixaan dhulka aabbahood. Kadib Aragorn ayaa saqafka guriga ka soo boodaysa, waxayna halhal u garaacaysaa Yangdu iyo kooxdiisa. Ugu dambeyn Yangdu ayaa gacanteeda soo gelaya, Qiangihi ayaana ka celinaysa, waxayna ku dhehaysaa halkan mar dambe ha ku soo laaban. Dhinaca kale Jang iyo Johain waxa ay ku kulmayaan kaynta. Jang iyo Johain waxay ahaan jireen saaxiibo wada shaqeeya 10 sano ka hor, waxayna qaateen daqiiqado ay ku xasuusanayaan waqtiyadooda hore. Jang ayaa weydiiyey Johain sababta ay mar kale uga qayb qaadanayso howlgalkan, wuxuuna ugu shakinayaa in barofesoorada ay u soo dirtay hawshan sababtoo ah iyadu ma aaminsan Jang, waxayna u malaynaysaa inuu isaga qayb ka ahaa weerarka shaybaarka lagu qaaday. Jang wuxuu sheeganayaa inuu isaga ku jirin kooxdii weerartay shaybaarka, wuxuuna dhahayaa Jayon ayay ahayd qoftii weerartay shaybaarka Aragorn ay ku jirtay. Waxaa kaloo Aragorn raadinaya koox la yaqaana Tuos, iyagoona la ogeyn cidda ay u shaqeeyaan. Markii laba xubnood oo ka mid ah isku dhacaan, waxaa kala celinaysa haweeney oo kiyaalo madow xiran oo u muuqato inay hogaamiyahooda tahay. Dhinaca kale weli ma quusan Yangdu, wuxuuna weerarayaa guriga Qiangihi adeerkeed si uu u weydiiyo qofka ay tahay Aragorn, wuxuuna u sheegay inuusan wax aqoon ah u lahayn. Dhinaca kale Dagil ayaa tusaya Aragorn muuqaalo ku saabsan dadka YouTube-ka soo dhigay iyagoo cunto badan cunaya, wuxuuna u sheegayaa inay lacag badan heli karaan haddii ay taalantigeeda cunto cunista YouTube-ka lagu soo bandhigo. Laakiin Aragorn xiiso uma qabta lacagta iyo caannimada, waxay kaliya la yaaban tahay oo soo jiitay cuntada. Kadib waxay soo galayaan dukaan raashin lagu iibiyo. Marka ay gudaha galeen, Aragorn waxay bilowday inay cunto cunooyinka miiska saarnaa ee loogu talagalay inay dadka dhadhamiyaan si ay u gataan. Waxay cunaysaa dhammaan cunooyinka meesha yaallay. Kadib markii ay meesha oo dhan fowdo ay ka dhigto, Dagil ayaa soo ordaya si uu u joojiyo. Qiangihi waa la soo wacayaa si dhuumasho ah ayayna ugu baxaysaa meesha, waxayna aadaysaa adeerkeed si ay u caawiso. Waxaan arkaynaa iyadoo isbitaal ka keentay. Kadib wuxuu kula talinayaa inay iska fasaxdo gabadha Aragorn. Wuxuu sidoo kale ka codsanayaa inay dhulka ku wareejiso Yangdu intaanu dhibaato kale oo ka weyn u geysan. Qiangihi iyadoo aad u niyad jabsan ayay soo baxaysaa, waxayna fadhiisanaysaa gaarigeeda. Isla markaaba waxaa gaariga soo fulay Johain iyo ninka la shaqeeya. Johain waxay Qiangihi tusaysaa muuqaal Aragorn oo dilaysa askar weliba si aad u fudud. Kadib waxay u sheegaysaa inay raacdo amaradeeda haddii ay rabto inuu badbaado walaalkeed Dagil. Dhinaca kale Yangdu ayaa ugu dambeyntii foolka fool ula kulmaya kooxda Tuos oo iyaguna doonayay macluumaadka Aragorn, waxayna horey u soo laayeen raggii ilaalada u ahaa Yangdu. Dhinaca kale Aragorn waxay saaxiib dhow la noqotay Dagil, kaasoo bilaabay inuu dareen jacayl u qaado. Aragorn waxay ku kalsoonaatay isaga, waxayna tusaysaa awooddeeda. Filimku wuxuu ku dhow yahay meesha ugu xiisaha badan. Daawada haddii muuqaalka weli like inoo saaran, waxaan kaa codsanayaa inaad noo like garayso. Dhammaan dhinacyadii iska soo horjeeday ayaa ku soo qulqulaya oo isugu imaanaya halka ay joogto Aragorn. Johain waxay qorsheynaysaa inay adeegsato dhawaqa madaafiicda ciidda si ay u qariso howlgalkeeda ay ku dilayso Aragorn. Dhinaca kale isla markaas kooxda dilayaasha ee loo yaqaano Tuos ayaa iyaguna jidka ku soo jira oo ku soo fool leh meesha. Gudaha guriga Qiangihi waxay Aragorn u sheegaysaa inay khiyaantay, ayna iyada sheegtay meesha ay joogta. Kadib Yangdu ayaa imaanaya guriga, kadib waxay soo qaadanaysaa qorigeeda, waxayna hor istaagaysaa Yangdu oo taagan banaanka guriga. Yangdu waxaa la socda kooxda loo yaqaano Tuos. Kadib dood iyo muran dheer oo dhex maray labadooda, Yangdu wuxuu tooganayaa Qiangihi. Dagil wuu soo ordayaa si uu walaashiis u caawiyo. Aragorn gudaha guriga ayuu ugu soo tagayaa. Guriga waxaa lagu dhufanayaa gantaal ay soo tuureen Johain iyo kooxdeeda. Labadii qof ee kooxda Tuos waxay ogaanayaan inay keligood goobta joogin oo ay jiraan dad kale oo hubaysan oo weerarka qayb ka ah. Mid ka mid ah gabdhaha kooxda Tuos ayaa aadaysa dhinaca Johain kooxdeeda si ay ula dagaasho iyadoo adeegsanaysa mindiyo ay aad ugu xirfadaysan tahay, waxayna si degdeg ah u leynaysaa raggii oo dhan, kuwaasoo celin waaya xawaaraha awooddeeda. Dhinaca kale waxaan arkaynaa Yangdu oo qarka u saaran inuu toogto Dagil, laakiin waxaa ka hor istaagtay Johain. Johain waxay ugu dambeyntii foolka fool u wajahaysaa labadii dilaa ee kooxda Tuos. Haweeneyda hogaaminaysa kooxda Tuos ayaa la soo baxay awooddeeda, iyadoo adeegsanaysa xoogga maskaxda si ay u xakamayso biraha xindaabka ee hareeraheeda yaallay, waxayna birahaas ku dilaysaa dhammaan raggii Yangdu. Johain iyo ninkii la shaqaynayay waxay rasaas ku furayaan haweeneyda Tuos. Haweeneyda waxay ku ordaysaa xawaare sare sidii hilaac oo kale,
waxayna u goynaysaa dhammaan rastaastii lagu soo riday. Johain waxay dilaysaa mid ka mid ah dilayaashii kooxda Tuos iyadoo jiifta daagil hoostiisa. Waxay ku dhehaysaa ka carar meesha si uu u badbaado, laakiin intuusan cararin Yang Gu oo dhaawac ahaa ayaa tooganaya, halkaas ayuuna ku dhimanaya wiilkii yaraa. Dhanka kale, Ark-1 ayaa ugu dambeyntii soo toosaysa qaraxii gantaalka kadib, waxayna bilaabaysaa inay dib u xasuusato waqtiyadii ay la qaadatay walaalaha Kyung-hee iyo Daagil. Mid ka mid ah kooxda dilayaasha ee Tuos waxay arkaysaa Ark-1 oo meesha taagan, waxayna ku dhahaysaa waxaan u haysanay inaad ku dhimatay gantaalka guriga lagu dhuftay, ilaan waad nooshahay. Kadib way soo cararaysaa si ay u disho. Ark-1 waqtiga ayay istaajinaysaa, kadib mintideeda ayay madax ka gelinaysaa. Dhinaca kale, dagaalkii u dhexeeyay dilayaasha soo haray ee kooxda Tuos iyo Johain weli wuu socdaa. Johain waxay ku jirtaa xaalad adag, bastoolad ayaana lagu hayay, laakiin waxaa badbaadiyey ninkii la shaqaynayay. Naftiisa ayuuna u hurayaa si uu iyada u badbaadiyo, wuxuuna isku tuurayaa dilayaasha si ay u badbaado. Ark-1 ayaa ugu dambeyntii imaanaysa goobta, waxayna arkaysaa saaxiibadeeda Kyung-hee iyo Daagil oo dhintay. Aad ayay u xanaaqaysaa, waxayna soo fasaxaysaa awooddeeda. Mid ka mid ah dilayaasha kooxda Tuos gacmaha ayaa ka go'aya. Haweeney kale ayaa soo aadaysa, waxayna ku dhufanaysaa dharbaaxo, waxayna ku dhacaysaa meel fog. Dilaagii gacmaha ka go'ay wuxuu mar kale soo weerarayaa Ark-1 isagoo gacmo la'aan ah, waxayna kala hortegaysaa awooddeeda. Kadib waxay si silac ah u dilaysaa Yang Gu. Dilayaashii hore ee kooxda Tuos waxay u malaynayaan inay Ark-1 ku mashquulsan tahay Yang Gu. Weerar ayay ku soo qaadayaan, laakiin taasi waxay ahayd qaladkoodii. Mid ka mid ah ayay Ark-1 ka dhigaysaa naafo, xubnaheeda ayayna maskax ahaan u maamulaysaa, waxayna ku qasbaysaa inay qoorta iska geliso mindideeda. Mid kale isna waxay u qarxinaysaa si aad u xun, kaasoo hilbihiisa hawada raacisay. Markay aragtay wixii dhacay dilaayadii dhaawaca ahayd ee kooxda Tuos, waxay bilowday inay dib u gurguurato. Isla waqtigaas, qof ayaa ka soo degaya gaari jiib ah. Qofkaas ma aha qof kale, waa Jayon, taasoo u shaqaynaysa kooxda Tuos. Jayon waxay u sheegaysaa Ark-1 inay tahay walaasheed, waxayna sheegaysaa maadaama ay iyada horey u dhaawacantay inay ka codsatay kooxda Tuos inay ka caawiyaan sidii Ark-1 loogu soo saari lahaa shaybaarkii lagu hayay, balse kooxda Tuos way ka leexdeen hawshii loo igmaday, waxayna go'aansadeen inay dilaan Ark-1 halkii ay badbaadin lahaayeen. Inta ay hadlaysay, Jayon waxay madaxa ka goynaysaa habeenaydii u dambeysay ee ka hartay kooxda Tuos. Jayon waxay u sheegtay Ark-1 inay raadinayso hooyadood oo weli nool. Waxaa kaloo u sheegaysaa inay Ark-1 ay maskax ahaan ugu xiran tahay hooyadood, ayna ka caawin karto sidii loo heli lahaa. Ugu dambeyntii, Ark-1 waxay u barooranaysaa geerida labadii walaalaha ahaa, Kyung-hee iyo Daagil ee saaxiibada dhow la ahaa. Intay Ark-1 murugaysan tahay, Jayon ayaa irbid ku duraysa, markii ay suuxdana way kaxaysanaysaa. Filimkan halka ayuu ku dhammaanayaa. Daawade, ilaa halkan haddaad nala soo gaartay, waxaan ka codsanayaa channelka inaad like inoo saarto, nagu soo biir si aad ula socoto muuqaalada dambe aan soo dhigno. Nabaday.